السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتنا شرفت له كحرن كنال كنا برا في إنجليش وحيدين الله الله يعني وزكريا محمد عشر كيني مانت وعشر كيني اللي حاد أو ويل إن حدك قصي جرنو بقولك أوراهي عن استعمالنا سيد جوك تدا إن قيبتين مانت وحان كبرنا إن هدولا إدمو سيد أو قدر تمل هين قيمها مركن دكان تكنا محيب سنينو قيمها قاب كان ويديل هنا إن شاء الله عشر كاني كبرنا وأنا عشر كيني اللي حاد قيبتي سيكوبات هدولا إدمو intaynan cashirkan ku bilaabin fadlan waxaa aad idinkaga codsanayaa haddaa nagu cusub tahay soo dhawow sidoo kale nagu soo bir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka sidoo kale asxaabtiina la wadaagtaan laakiin ha ilaabina si aniga ay noogu noqoto dhiirigelin adinkana uga faa'iidaan muuqaalada iyo cashirada ugu dambeeya aan soo gelino mahadsanid cashirkeeni maanta saan sheegayba wuxuu ku saabsan yahay qaabkan u weydiin lahayn shayga ay iibsanayno qiimihiisa halkan waxaa inoogu qoran questions for the buyer su'aalaha iibsadaha su'aalaha iibsadaha marka shay iibsanaysid waxa u baahan tahay su'aalaha ku weydiisid qiimaha waxa iibsanaysid haddaan ku bilaabo mideeni koobaad ama tusaalaheeni koobaad haddaan ku bilaabno waxaan ku baranaynaa qaabkan su'aal u weydiin lahayn su'aashaas oo ku saabsan waxa iibsanayno qiimihiisa aan ku bilaabo what is your cash price be waa maxay qiimahaaga lacagta caddaanka ah shayga iibsanaysa shaygaas rabtaa qiimihiisa oo cash ahaan in lagu sheego waxay imaanaysaa counterka meesha lacagta laga bixiyo waxaan leedahay horta hi mar walba salaantu waa muhiim marka meel ama qof u timaadid waxaa habboon inaad salaantid marka hore intaadan weydiinin su'aashaada xataa ha noqdo qof su'aal weydiinaysid ama qof wax ka iibsanaysid midku doon ha noqdo waxaa u baahan tahay marka hore inaad qofkaas salaantid waana sida ixtiraamka uu ku jiro Axmed iyo salesman Axmed waa qofka wax iibsanayo salesman oo qofka laga iibsanayo ama dukaanlaha ah hi I need these shoes what is your cash price hi I need these shoes what is your cash price hi waxaan u baahanahay kabahan waa maxay qiimahaaga lacagta caddaanka ah ama lacag ahaan qiimaha iibinaysaa salesman salaantu ka qaado wuxuu leeyahay hi welcome soo dhawow it costs $40 waxay joogtaa $40 hi welcome soo dhawow it costs $40 soo dhawow waxay joogtaa $40 midan waa midii koobaad ama qaybtii koobaad aan ku weydiinayno qiimaha tusaalooyinka halkan aan ku haysano maanta insha Allah haddaan idin xasuusiyo kulli waa isku wada mid laakiin qaabka qiimaha u weydiinaysa kala duwan laakiin macna ahaan waa isku midka doontid waa isticmaali kartaa mideena labaad what is your friends and family price waa maxay qiimaha saaxiibadaada iyo qoyskaaga qof markuu dukaan leeyahay asxaabtiisa iyo familkiisa qiimaha uu ka siinayo way ka duwan tahay qiimaha dadka kale uu ka siinayo wuxuu u sameynayaa qiimo dhimis yara fiican ama qiimo fiican uu ka siinayo marka qofkan wuxuu weydiinayaa what is your friends and family price waa imisa qiimaha familkaaga iyo asxaabtaada ka siin lahayd haddaa si kale u dhiga waxaa ula jeedaa qiimaha ay sheegtay maxaa ka dhimi kartaa macna ahaan sidaas noqonaysaa marka tusaale jumladan tusaaladeeda u baahanahay waa Axmed iyo salesman waa ninka wax iibinayo Axmedna waa qofka iibsanayo ama iibsadaha Axmed wuxuu leeyahay what is your friends and family price waa maxay qiimaha familkaaga iyo asxaabtaada ka siin lahayd ii sheeg anna taas u baahanahay inaad iga siisid salesman wuxuu ku jawaabay marka I'm sorry waa ka xumahay that is the final price waa ka xumahay taasi waa qiimihii ugu dambeysay aan ku sheegay aan ka sii lahaa familkayga asxaabteeda marka adna sidoo kale qiimahaas aan ku sheegay waa final price-ka aan ka hadal lahayn midda saddexaad waa mid inta badan aan isticmaalno ama aan naqaano oo inta badan aan isticmaalno waxay leedahay how much is this kani waa imisa shayga qiimihiisa weydiinaysa saan u tilmaamaysaa how much is this kani waa imisa waa u tilmaamaysaa shayga gacanta ku haysid aad tusaysaa tusaale hi how much is this phone hi telefonkani waa imisa jumladan waxaa isticmaalaysaa marka telefoon iibsanaysid ama wax alla wuxuu doon ha ahaado laakiin halkan tusaalaheena telefoon ay nagu jiro telefonka qofka u tilmaamaysaa ama waa tusaysaa waxaa leedahay how much is this phone telefonkani waa imisa salesman ninka wax iibinaya ama telefonka iibinaya wuxuu leeyahay hi welcome soo dhawow it is $299 including tax hi
salaanta uu ka qaaday kadib wuxuu leeyahay welcome soo dhawow. It is $299 including tax. waa $299 ee ku jirto canshuurta. waa $299 ee ku jirto canshuurta. ileen shay walba la canshuura, marka canshuurta markii lagu daro shaygaas qiimihiisa wuxuu joogaa ama taleefankaas qiimihiisa wuxuu ku fadhiyaa $299. Mideeni afraad. How much are you selling this? How much are you selling this? imise ayaad iibinaysaa kan? imise ayaad iibinaysaa kan? waa shay aad gacanta ku haysid, aad tusaysid qofka dukaanka joogo imise ama qiimaha uu ku fadhiyo shaygaas. Axmed: Hi, how much are you selling this golden necklace? Hi, how much are you selling this golden necklace? Hi, imisaad iibinaysaa katiinkan dahabka ah? imisaad iibinaysaa katiinkan dahabka ah? Golden waa dahab, gold keliis waa dahab, laakiin golden waxaa la dhahaa shay walbo dahab ka samaysan. necklace waa katiin, waa makatiinad. Salesman uu ka jawaabay qiimiyuu sheegay. wuxuu leeyahay I sell it for $489. I sell it for $489. waxaan iibinayaa $489. katiinadan waxaan iibinayaa $489. waa fahanteen amalina inta aan sheego dhan muxuu ahaa ilaa halkan laga soo gaaray kulli. topigan maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka u weydiin lahayd shay qiimihiisa qaabka u weydiin lahayd, marka midka isticmaali lahayd ama ku fudud adiga ku taalaa. midda shanaad waxayna leedahay what is your best price? What is your best price? waa maxay qiimahaaga ugu fiican? waa maxay qiimahaaga ugu fiican? middan sidoo kale waxaa isticmaali kartaa qofka markuu qiimaha uu ku sheego laakiin aadan ku qancin, waxaa leedahay qiimaha ugu fiican waa maxay. sidoo kale marka shay qiimihiisa weydiinaysid waan isticmaali kartaa shaygan qiimihiisa ugu fiican waa maxay, ama qiimahaaga ugu fiican oo shaygan iibinaysid waa maxay. tusaale Axmed iyo salesman. Axmed iyo qofka wax iibsanayo. Axmed wuxuu leeyahay hi, ileen salaanta marba wadina. What is your best price of this laptop? What is your best price of this laptop? Hi, wuu salaamay. waa maxay qiimahaaga ugu fiican oo iibinaysid laptopkan? laptopkan qiimahaaga ugu fiican oo iibinaysid waa maxay? Salesman: Actually, it is $649 after the discount. wuxuu ku jawaabay run ahaantii waa $649 qiimo dhimista kadib. waa la fahamsaa rajaynayo. Number 6. How much is this and that all together? marka jumladan waxay ku saabsan tahay laba shay iyo wixii ka badanba markaa weydiinaysid qiimahooda, isku geentooda qiimo ahaan intay ku fadhiyaan markaa weydiinaysa waxay isticmaalaysaa jumladan how much is this and that all together. waa imisa qiimaha gebi ahaan kan iyo kaas. waa laba shay aad tilmaamaysid, qofka u tilmaamaysaa ama laba shay laga yaabo ina oo gacanta ku haysid oo u baahan tahay in lagu sheego qiimihiisa. tusaale Axmed: How much is this and that all together? How much is this and that all together? kan iyo kaas qiimahooda waa imisa ama isu geyntooda waa imisa. Salesman wuxuu ku jawaabay isagana all together is $33.60. How much is this and that all together? kan iyo kaasi qiimo ahaantooda isu geyntooda ama qiimahooda marka la isku geeyo waa imisa. Salesman: all together is $33.60. $33.60. waa fahanteen oo filaya. marka lana ku celinaya jumlooyinkan inta badan ama wax walba ama meel walba wax ka iibsanaysid waa u isticmaali kartaa. jumlooyinkan goob walba wax ka iibsanaysid waa u isticmaali kartaa marka u baahan tahay in lagu sheego shayyaashaas aad iibsanaysid qiimahooda. mar walba waa isticmaali kartaa. xilli gooni ah oo cayiman oo ayaga uun la isticmaali karo ma jirto. dukaan walba waa u isticmaali kartaa. mideen ugu dambeysay 7. Can I get a discount? ma heli karaa qiimo dhimis? Can I get a discount? ma heli karaa qiimo dhimis? ma heli karaa qiimo dhimis. jumladan waxaa isticmaalaysaa qiimaha marka lagu sheego kadib waxaa leedahay qiimo dhimis ma heli karaa. qiimahaas laga yaabo inaadan ka helin, waxaa u baahan tahay qiimahaas qiimo ka jaban in lagaa siiyo. Axmed: Can I get a discount from this t-shirt? Can I get a discount from this t-shirt? t-shirt waa fanaanad. fanaanadaha caadiga waxaa la dhahaa t-shirt. ma heli karaa ama fanaanadan ma la ii samayn karaa qiimo dhimis? fanaanadan ma la ii samayn karaa qiimo dhimis? Salesman ama qofka wax iibinaya wuxuu leeyahay of course. طبعا. of course طبعا. What color do you prefer? midabkee doorbidaysaa ama midabkee jeclaan lahayd?
of course. What color do you prefer? dabcan waa lagu sameynaa qiimo dhimista marka midabkee jeclaan lahayd inaad qaadatid ama midabkee dooratay ama midabkee waa dooqaaga. waa fahanteen amalena cashirkeeni maanta waa inoo halkaas intiinaan cashirka xig ku kulmeen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.